xubnaad taxanaha mahmaahda Soomaalida barnaamijyadii aan kaga hadlaynay waxayna ku saabsan tahay maansayahanada iyo adeegsiga mahmaahda daafaha dunida ummadaha ku dhaqan oo idin libaaxu waa u astaan geesinimo boqorka keynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo mahmaahda Soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka soo waxa ay reer miyigu u aqoonsan yihiin inuu leeyahay wax garasho xoogaa ah oo uu dugaaga iyo duurjoogta kalaba leeyahay ka hor intii aan la reer magaaloobin oo si dhab ah ay nolosha Soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayay kolkol waxay reer miyigu la kulmi jireen libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo dunyana huf ka dhiga maalin ama laba kolkuu maqnaado ayuu soo noqdaa oo wixii uu arkaba wasjeefa kolkaas baa mararka qaarkood waxaa is urursan jirtay koox dhalinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef uu xalay dishay ilbihii uga haray isaga oo barkan falaare maliidaysan hasiteen ama rasaasi shakaraha uga buuxdee inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysta lagu asiibaa isna markaas ayuu boodaa oo dir u qaanshaystaa waxay haddaba Soomaalidu qabtaa dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn inuu si ulakaca u abbaaro nabarka ku yaal ninkii iska lahaa kaasoo waa yaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu keenyaha dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa arrintaas iyada ah waxay Soomaalidu ka leedahay mahmaahda ah libaax nin ganay iyo nin galadayba og oo uu ku mahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeello ka soo gaadhay ha yeeshee si gaar ah maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u irda bixisay haddaba 1922 ayaa waxaa gabay tiriyey nin reer xaraf dheera ahaa oo la oran jiray Faarax Cismaan Kawto kaasoo dhinacyo dhowr ah ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufiyo isdaba jooga oo aan loogu turin gabaygii uu maalintaa tiriyey oo madax dhulka cashad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhifto tabaalaha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa amaba halakayntiisa ugu hormaray dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta mahmaahda xusuustay u adeegsaday suduucyadii goodiga ahaa ee gabaygiisa wuxuuna yidhi libaaxuba nin ganay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geesti loo dhimayey hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuufooda geliyay Soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooyee aan wax sharqan lahayn sida loo joogo ayaa lagu war helaa isaga oo xoolihii ku dhex jira mar horena uu qaar caroosiiba ka soo riday oo uusku meel walba daadsan yahay jaadka kale waa midka hinraaga badan ee kolkuu inta gaajooda wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaas jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay Soomaalida xoolalayda ahi kala door bidaa kullay haddii aan la horayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu toorayn karo waxay dhab u necab yihiin cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaana markuu jiro oo qura la ogaado arrintana Soomaalidu way ka mahmaaday waxay tiraahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo loola jeedo cadawga laga digniinayo ama ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka qayl la'aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba ka wareema macnahaas mahmaahdu xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday maansayahanka caanka ah ee la yiraahdo Cabdullaahi Macalin Axmed oo dhoodaan ay Soomaalidu ku garan ogtahay ujeedadiisu waxay ahayd dad uu markaa hoga tusaaleynayay inuu u kala dooro laba dhinac oo ay ku dhex jireen isaga aragtidiisana midka u roon ee inay dhinaca saaraan ay u egtahay ujeedadiisu waxay ahayd dad uu markaas hoga tusaaleynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen isaga aragtidiisa midka u roon ee inay dhinaca saaraan ay u egtahay mahmaahdaas labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka dayrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinaahsheeciyaa waaba kuu digaye markaasaad dudada oodataa oo dabshidataa marse hadduu duleedkaaga yimi diilalyana hayso isagoo dibnaha kaa xidhoon maalka didinaynin hurda dakharta laylkiya iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo amuu dadkaa laayo labada aarka daran doolaya ee aamusaa daranigo
ragga sheegta faraadka libaaxa iyo dhaqankiisa inay wax badan ka og yihiin waxay ku sheekeeyaan marmar badan inuu bahalkaasi maagga dadka u dulqaato waxay sheegaan kolkol halka uu joogo inta lagu soo doonto oo weliba la tuurtuuro inuu haddana goobtaba isaga dhaqaaqo isaga oo aan umlin wixii lagu falayna aan ka xafiif qaadan hase ahaatee haddii aan intaas looga hadhin lasii dabagalo sidii lagama fisho waana la eedaa sidaa daraaddeed soomaalidu waxay ku mahmaadaa libaax laba geed lagama wada kiciyo oo ah murti ina baraysa inaan la isku hadlayn karin dulqaadka hore ee qofka awoodda badan leh uu muujiyo marka lagu gardaroodo ama wax aan qaban lagula kaco samatar baxnaan oo rag uu dhowr jeer gardaradooda ugu dulqaatay u goodiyaya libaax maagiisa lagu rakaatayna iska dhigaya ayaa gabay uu tiriyey wuxuu ku daray dirrimihii iyo kaymaha haddii dacaddi loo dhaafsho dugsiguu galaayiyo haddii duurka laga saaro dib buu shicibka ugu soo noqdaa aarka daalanoweed waa tahay waxay kaloo soomaalidu ku mahmaahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan oo ah mahmaah dhiiri gelinaysa midnimada iyo koox ahaan in wax loo qabsado intii keli iyo nintooxsi wax lagu qabsan lahaa waxaa isna mahmaahda adeegsaday oo si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay soomaalidu badiba taqaan gabayaagii reer burco ee la ohan jiray cabdilaahi muuse bilowgii 1970nadiina geeriyooday isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaya ayuu cabdilaahi tiriyey gabadh uu ujeedadiisa mahmaadanka dhexaad uga dhigay inuu la ekaaba waxay soomaalidu ka qabsatay saddexdan meeli fiican ka noqday waxay ahaayeen istaageeri bay laba gacmood tamarkuu yeeshaanee kiska waxaa la qaadaa hadday teedisaa bidixee hadday midigtu keli taagan tahay daar ma goyseen dhegaystayaal barnaamijkii fanka iyo suugaantuna halkaa maanta aynoo joogo mansiyahanadii hore ee magaca weyn lahaa mahmaahda soomaalidana u markhaati doontay waxaa ka mid ahaa gabayaagii weynaa ee reer hargeysa lana odhan jiray faarax nuur muddo dheer ayay faarax waxay isu gabayaayeen maansiyahankii isna caanka ahaa ee qawdhan ducaale suldaan la odhan jiray laba nin oo waxay ahaayeen isku beegmi karay geeridoodii kadibna inooga tegay silsilad maanso oo hodantooyada suugaanta soomaalida wax badan ku soo kordhiyey maalintii dambe ayaa waxaa faarax nuur loo keenay gabay loo soo tiriyey hase ahaatee halkii uu filaayey aan uga iman wuxuu ahaa gabay ka yimid inan dhallinyaro ah oo ay qawdhan isxigeen ayna muuqato inuu labada gabayaa u kala helinayay faarax nuur waxaa malaha ka degi weyday inankan yaray sida uu ugu soo dhiiraday oo weliba tix ay afxumadu muush ka tahay uu ugu soo mariyey kolkaasuu isweydiiyey bal haddaan ka weynahay bal haddaan ka gabaysanahay oo geyiga oo idil magacayga lagaga haasaawo bal haddaan ahay afkuleebile daymadiisu aanay dhulka dhicin bal intaasba inaan ahay haddii la og yahay waa axdare sidee inankan yari iisoo sarooshay ma mid ay xigaaladiisu nacdayba wuxuu xusuustay mahmaahdii ahayd gal dadliqa ul baa lagu dayaa oo loola jeedo ballida iyo hadhooyinka ay biyuhu ceegaagaan la iskama galee horta waa la iska hubiyaa oo si aan loogu hafan moolkooda ayaa la sugtaa ul dheerna la isaga hilaadiyaa faarax waxa uu isagu isu arkaa inuu yahay gal dadliqa oo ina warfaa suldaan waa inankii u soo gebiyey ogaal la'aan uu dalaq ugu soo yidhi gabay jawaab oo uu tiriyey ayuu ku bilaabay murtida shishe ee ay mahmaahdu ina barayso taasoo ah inta aan halista madax la isugu tuurin in la dhudhumiyaa inay wanaagsan tahay wuxuu yidhi gal dadliqa ul baa lagu dayaa laga dambeeyaaye weligiinba ceel dawlislaa dalaq tidhaahdaane dirkii kula dhashiyo aabbahaa kuguma daayeene malaa miduu warfaadayreeyey oo daahan baa tahay aarkii daboolaanahay aan dibadda joogayne duddada geela wiilkan sidii dawli kala booday ama doon yaxaas uga dhacaa waa dad aakhiro sida muuqata meedashada saddexda ah ee dambe waa kuhaan uu maansiyahanku ku halgaaday inankii ku soo dhiiraday gabayaagii la odhan jiray cabdi iiraan faaraxna siduu ku warramay lama seegine wuu la helay goor ay fii tahay oo markaas geerashii lasoo xeraystay ayaa libaax aan cid kala waxyeelin ina warfaa dusha kaga dhacay oo geeltirihii kale kala dhex baxay dabadeed dadkii dhacdadaas goobjoogga uu ahaa in doora oo ka mid ah ayaa waxay rumaysnayd bahalka inanka la tegay inuu ahaa faarax nuur qudhiisa oo libaax isaga soo dhigay taasoo muujinaysa afkuleebnimada iyo awoodaha dahsoon ee ay bulshada soomaalidu gabayaaga u ogoshahay amaba u qarsan tahay waa tahay sidaynu ognahay hiddaha soomaalidu wuxuu muddo qarniyaala ku salaysnaa welina ka daba qaataa
miyiga iyo habnooleedka xoola raacatanimo ee lagaga dhaqmo habkaas oo ah mid dhib iyo canaab badan waxa uu lagaba maarmaan ka dhigayaa xubnaha qoyska oo idili inay ciidamiyaan waayeelka iyo dhallinyarada ka sokow carruurtana waa la adeejiyaa wiil ama gabarh kuu doona ha ahaadee canugu markuu 4 jirsadaba waa lagu tashadaa waxraha ayaa la raaciyaa oo lagu halleeyaa waa lagula xisaabtamaa oo hadduu ka seexdo ama si kale u daayaco waa lagu canaantaa kolkolka qaarkoodna waa lagu ciqaabaa maqal raacista mooyaane si gaara ayay hooyadu dhallaankeeda u adeegsataa hawsha hoose ee reerka inta ay kala agaasimayso ayay ciidansataa iyada oo xidhada ariga ku jirta ama ardaaga fadhida ayay gudaha aqalka wax uga baahataa kolkaas bay makacde gabanada midkood u yeerataa oo hebelow shaygaas ii keen ku tiraahdaa isna waa hadduu dhaga fudud yahay haddiiba waa ula soo ordaa ha yeeshee carruurta qudheedu isku mid maaha laba walaala ayaa mid baari yahay oo waalidka aan innaba hadal ku soo celin midna uu dhaga adag yahay oo sida la yidhaahdo dabkaas igu soo dhaji aan lagu karin haba dhagaadkaadee kaas qudhiisa haddana waa la adeegsadaa gaar ahaan kolka ay carruurta kala maqan tahay oo isaga qurihii uu meesha joogo iyada oo aan rajo badan ka qabin waxa ay u dirsanayso inuu yeeli doono ayay hooyadii ugu yeedhaa magaciisa iyo mid kaloo kool ah ayna ku sasabayso waxa ay rabto inay u dirsato markay u sheegto ayuu waa siday filaysay isa soo taagaa oo inta gunuunaco foolkeedaba ka dhaqaaqa iyana ma habaatee way la yaabtaa uun qudheeduna way isla yaabtaa waxaase isu garawdaa marka ay xusuusato maahmaahdii ahayd madax muuqda iyo mindi saawida midna lagama quusto oo aan filaayo inay tahay maahmaahda qaarka xaawalayda laga bartay waa maahmaah lagu xusuusto had iyo jeer qof indhahaaga hortooda ka muuqda oo in badan intaad mudatay aad ku hungowday hase ahaatee mar walba adiga oo ilowsan aad u hanqal taagto inuu kuu danqumiyo si kastaba ha ahaatee maahmaahdaasi waxay si wanaagsan ugu shaqalan tahay saar uu tiriyey hal abuurkii la ohan jiray Carays Ciise Kaarshe intaan soo gaarin baa looladan leeyahay wuxuu allah u naxariistay ahaa hal abuurkii saarka dhulka ka soo qaaday ee milgada u yeelay meeqaanka gabaygana soo gaarsiiyey isaga oo markaas ka hor ay xilliyada aaranka ah dhalinyaradu xodxodo iyo caytan qurax u tuman jirtay saar ku magacawnaa waa murugay ma ogtihiin ayuu Carays lixdanadii qarnigii hore Soomaalida dhab ugu waaniyey midnimadeeda ayuu ku waaniyey qabyaaladana wuu ka waaniyey wuxuuna farta ugu fiiqay si walba oo ay asaageed ula soo sidmi karayso ha yeeshee meel dhexe kolkuu maraayo ayuu iscululubtay waxay la noqotay murtidiisu inay dhaga owdan ku dhacayso malahayga wuxuu isweydiiyey waanadeydii horeba haddii ay wax ku qaadan weyday matan bay wax ku qaadanaysaa bal maan isaga aamuso markaas baa waxaa ku soo dhacday maahmaahdii ahayd madax muuqda iyo mindi saawida midna lagama quusto taasoo uu saarkii ku darsaday wuxuu yidhi Soomaali aan maan lahayn intaas maandhooyow iyo maliix baan ula hadlaa ileen madax muuqda iyo mindida tii saawiday waqaa kama maarantide mar un baa loo muuqdaa Carays Ciise wuxuu ahaa hal abuur ay dadka yaqaanay aad ugu maamuusi jireen dhaqan wanaagiisa si wacanna waajibkiisa uga soo dhalaali jiray xilligii uu ka mid ka ahaa bahda warfaafinta qaybteedii hanuuninta ummadda lagu jaaray wuxuu ahaa hal abuur joogitaankiisa la dareemo maqnaanshihiisana la tebo oo markuu raadiyo Muqdisho soo galo uu dadweynuhu si wacan dhagaha ugu raaraciyo taana wuxuu ahaa ninka warqaba sidaa darteedna ku xisaabtama weligii waxaa ka go'nayd intaa uu shaqada ku jiro inuu ahaado qof firfircoon oo maanka dadweynaha wanaagna gelinsiin kara xumana kala diriri kara aad wuxuu u aaminsanaa mahmaahdii ahayd ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay taasoo uu ku soo daray isla saarkii ku magacawnaa waa murugay ma ogtihiin isaga oo malaha ku duraayey isaga ay isku wasaarad ahaayeen ayna ula ekaatay midkood waliba inuu ahaa kii lagu yidhi meesha kama tage waxna kama tare wuxuu Carays yidhi mawjada gaagaaban iyo makroof baan ku hadlayaa meel in laga muuqda iyo waa in laga maqan yahay midnaba ruuxi aan ahayn ma dheer baa lagu maslaa magacaaba iyo waa murugay ma ogtihiin dhegaystayaal tanina waa qaybtii 13 taxanaha maahmaahda Soomaalida barnaamijyadii aan kaga hadlaynay waxayna ku saabsan tahay maansayahanada iyo adeegsiga maahmaahda ragga gabya markii ay wax tirinayaan adeegsiga maahmaahda ku falan waxa ugu muuqdeer Cabdullaahi Dhoodaan gabayaaga lagu magacaabo malahayga waa dhif gabay uu leeyahay oo aan maahmaahda ku googo'nayn taasoo aad moodo marar badan inay ka tahay doola tusad uu ku bandhigayo aqoonta dheer ee uu dhaqanka dadkiisa u leeyahay gaar ahaan dhaqanka reer miyiga iyo murtidooda darfaha ballaaran
dhowr tusaale oo gabayadiisa faraha badan aan ka soo xulay aan u horraysiiyo mahmaahdii ahayd cadowga dhuux sagaaraa loogu dhaashadaa ama cadowga dhuux sagaaraa loogu soo dhaashadaa oo ah murti inagu waaninaysa darxumada markaas ina haysa inaan qabsanno oo aan cadowgeennu foolkeenna ka daalacan si aanu inoogu wiirsan waa inaannu jireec inaga garan oo markii uu inaga hor yimaado aan u muujinno dharag iyo ladnaan aan jirin haddaba gabay dhugad la yidhaahdo oo 1960 uu soomaalida ku guubaabinayay ayuu mahmaahdan ku soo qaatay isaga oo weliba ujeeddadeeda shishana inoo sii kala dhigdhigaya wuxuu yidhi raggiisa aabbayaasheen dhalaha dhaafay hadal weyne mahmahyaday noo dhigeen midaan ka soo dheegay intaad sacabada u dhigan lahayd cadowku dhuudaaya si aad dhoomo inaad buuxsatay oo dharagtay kuu moodo dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhuubni kaa garanee waxaaba loogu soo dhaashadaa dhuux sagaara ah markaad hadalku geestuu u dhixisii dhadhamisaanna dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsada macnuhu waa dhiggaa lama bariyee ceebka dhowrsada isla xilliyadaas ayuu dhowdaantiriyey gabay isagana uu soomaalida ku waaninayay isla markaasna uu ku muujinayay sida farshaxanimada miiran ah ee uu maahmaahda maanta ugu rogi karo iyada oo inay dhib ku tahay aan innaba laga dareemayn wuxuu soo qaatay 4 maahmaahood ee kale ah dhagax taabasho iyo tuujine waa isaga too hal nin la toosani nin la tuur leh waana abuur baa ka horraysay iyo 3 baa rag ugu liita matabcade matoshe iyo matashiishe dabadeedna inta isxijiyey ayuu ku soo koobay 7 meelis oo qayb ka ah gabaygiisii uu tusaale u bixiyey wuxuu yidhi dhagax taabasho iyo tuujin iyo inaad tantoobayso 3daa midkaad ula tagtaa waa isugu taage nin wixii la toosani mid buu tuur la leeyahay waanada abuurkaa tirtira oo ka tabaroone qofkaan tirinse maalkiisu waa inuu tasoobaayo maladiisa kaan tolan dhaqsay uga tifmaysaaye ka tashiiran waayana ma dhalan si uu taajiro waxay kaloo soomaalidu tidhaahdaa hasha labada geel jecel dhexdoodaa bahal ku cuna waxaana loogu mahmaahaa keli ama koox kolba ciddii aan go'aan adag lahayn 2 dhinac oo xiniife dhex taal waaba dhinac la saayirta kuna raas noqota cidda sidaas u dhaqanta ayay mahmaahdu u dardaar warinaysaa waxayna dhoodaan ku soo dhacday mar uu u dan lahaa niman uu barbarayn ku arkay marahayga uu jiirkuna u damqanayay kolkaasuu ku yidhi sarsarkiyo hashii labada geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan sidoo kale waxaa iyaduna jirta mahmaah 3 ah oo la yidhaahdo 3 eebba waa karaa mase yeelo allow dhisan maayee dhal isii allow xoogsan maayee xoola isii iyo allow camal falan maayee hay cadaabi isla gabaygaasiinka ah ayuu dhoodaan mahmaahdaasna ku xusay isaga oo nimankii uu canaananayay markaas quus ka jooga waxaa u muuqatay inay ka soo reeyaan riyo uun inay la mid tahay ayna u eg tahay 3 arrimood ee uu eebba kari karo hase ahaatee aanu yeelin sidaa darteedna aan marnaba dhicin markaasna wuxuu yidhi 3dii la yidhi eebbahay suuro gelin maayo sancadiinna saaweyn kartaa laga saliiliyooni waa tahay cilmiga barbaarinta inkastoo aanay magacaas u aqoon haddana soomaalidii hore wax weyn baa uga bilownaa in badan oo ku saabsan hababka korinta dhallaanka iyo kobcinta garaadkooda ayaa laga helayaa suugaanta qaybaheeda kala duwan iyo weliba sheekooyinka hiddaha ee da'da ka dambaysa ay dhaxalsiin jirtay taana waxaa tusaale wacan u noqon karta mahmaahda ah awrba awrka ka horreeya saanqaadkiisuu leeyahay oo macnaheeda muuqdaa uu yahay haddii 2 awr ama ka badan la isku xidhiiriyo inuu mid waliba yeelanayo midka ka horreeya saanqaadkiisa hadduu dheereeyo iyo hadduu gaabiyaba dulucda shishe ee mahmaahduse waxayna baraysaa cashar barbaarinta ku lug leh oo ah had iyo jeer inay u badan tahay kolba curadka qoyska u soo hormara in wiilasha kale ee ka yaryari ay ku daydaan waaga dambana ay ku dabeecad noqdaan badanaa waalidka ayay mahmaahdaasi ku soo dhacdaa mar walba oo ay arkaan qaar carruurtooda yaryar ka mid ah oo tabta kuwa waaweyn u dhaqmaaya cabdulaahi dhoodaan oo mahmaahda gabayadiisa midkood u soo daliishadayna wuxuu yidhi margi balaqa awrkee hoggaan lagu makaabeeyey ka xiriirka la isugu mara ee daba mushaaxaya tallaabada iyo miidaanka socod waysmatalayaani dhoodaan intaa halkaa ku dhaafo aan u weecdo rag kale oo iyaguna gabayadooda markii ay ku doodayeen mahmaahda u ceersaday daliil la cuskan karana ka dhigtay
balan eegna mahmahdii ahayd khayr wax kaama dhibee shar u tooghay oo ah tu waxay inooga iftiiminaysa bulshadii hore ee Soomaalidu dhiiladii joogtada ahayd ee ay ku noolayd waa mahmaah sawir cad inaga siinaysa dhaqan colaadeedkii si walba bulshadaas ugu dhex fiday iyo falsafadii ka abuurantay ama laga dhaxlay falsafada inagu gubaabinaysa kala shakiga iyo qof waliba inuu xul ku yahay ilaa uu ku cadeeyo inuusan ku ahayn sida ay mahmaahdu ina farayso ruux waliba waa inuu waran la yuurur ahaada waa inuu rikaabku joog ku waabariistaa waa in warmaha iyo gaashaankuba ay gacmihiisa ku nagaadaan mar walbana waa inuu ka digtoon yahay cadow uusan ogeyn bal horta inuu jiro iyo in kale war uu soo aadan yahay iyo afarta jaho tan uu ka iman doono mahmaahdan khayr wax kaama dhibee shar u tooghay ayaa 70-nadii qarnigii hore waxaa gabayadiisa midkood ku soo daray gabayaaga lagu magacaabo Axmed Maxamed Shirwac oo dhuuracso lagu naanayso waxay ku jirtay gabay canaan u badan oo uu ula jeeday nin markaa madax ahaa isagana ay xigaala ahaayeen kaasoo siduu gabayaagu rumaysnaa aad uga damanaa halis ku soo fool lahayd iyo shirqoollo badan oo cadawiyadiisu ay u maleegayeen tuduca ay mahmaahdaasi ka muuqato ayaa wuxuu ahaa ruuxii wanaag kuu taraasama la taartaay kuma taakuleeyaha ku nacab looma xirataa beenamaan kuu turayn weligii waa la iska tiirshaayay khayr wax lama tagee wax la yidhi bala u toog dhowre tub lagaaga soo digay ku joog tala miyaad mooday dhegaystayaal barnaamijkii fanka iyo suugaantuna maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo yahanada Soomaalidu mahmaahda marka ay gabyayaan ari iyo iskinba xoolaha reermiyiga Soomaalidu uu dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsanno waxaan ogaanaynaa dhadigoodka iyo laboodka in ay dhadigoodka jecel yihiin waxay jecel yihiin hashu inay liq dhasho intii ay qurbac dhali lahayd saxu inuu weel dhalo intii uu dibi dhali lahaa sidoo inay waxar dhasho intii ay orgi dhali lahayd laxduna ay neel dhasho intii ay wan dhali lahayd sababta in la gartaana ma cuslo oo waxay daaran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka maalaan oo kordha mar walba oo dhadiga xariyaha ugu jiraana uu kordho ganacsiga xoolo dhoofinta intii aanay Soomaalidu baran waa 50 sano muddo aan sidaa uga sii badnayn awrta dibida waranka iyo orgida wax weyn laguma fali jirin in badan oo ka mid ahayna reeraha leh intay ku dhex gabowdo ayay waada madar alla isaga baqtiyay jirtay waa run oo way qalan jireen wayna raran jireen hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd tirada uu qoysku u baahan yahay sidaa daraadeed xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reer miyigu ku mintidaan xoolaha kuwooda dhadiga ah badbaadintooda hasha saaca rida iyo laxda ayay biyo iyo baadba u buriyaan maalinta ceel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wadxaana laboodku dalka ma soo galo weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiilaalku jilciyo aroos dheer uma kaxeeyaan sida dadka ayaa haama loogu soo dhaamiyaa halka la degan yahay baana biyaha loogu keenaa laguna waraabiyaa xilligaas oo kale dankama ay yeeshaan dibida iyo orgidu inay oon u go'aan haddii sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaan oo xilli roobaad ay naftu ugu sinto arrintaa ku saabsan reer miyiga Soomaalidu siday xoolahooda u kala jecel yihiin waxaa inoo sii iftiimin karaysa mahmaahdii ahayd dibiga doolood dhagihiisu waxsan bay maqlaan indhihiisu sama arkaan oo talow maxaa loola jeedaa waxa la yidhi maalinta ay kalan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horeeya lo'du waa isku mid oo dhadigood iyo labood looma kala sooco waayeelka iyo dhalinyaraduba waxay ku hawshoon yihiin aroorinteeda iyo ururinta agabkii lagu shubi lahaa dar wadaan iyo dawlis intaba rag iyo haweenba lo'da beri goor hore hala arooriyo ayay isku gubaabiyaan taasoo ah oraah uu dibigu jecel yahay habeenkaasaan dhagihiisa ku soo noqnoqota kolkaas buu ileen lo'da waa ku jiraaye isna farxaa waaga berigiisana sugi waayaa ha yeeshee barqadii kolka ceelka la tago ayuu xandhoof dib u liqaa lo'da darka la gal markuu maago ayuu wax kale la kulmaa kaalinka iyo agihiisaba looma ogolaado haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii baa looga yureeyaa kolba sacbaa biyaha loogu yeeryeeraa isagana waa laga celiyaa bur weyn bay kurayadu ku hor joogaan markuu soo qamaamana geeska ayay badugaha kaga dhigaan isaga oo weli la gees garaacayo ayaa wixii dhadiga la rakaadaa oo qabaal loo buuxiyey kolba lagu soo duwaa goor uu oon la gologolay biyihii ceelkana aan wadaan quriga ku harin ayaa usha laga daayaa dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa weli isaga oo haraadan ama qaraaca ayuu lo'dii uu la soo arooray iska dabagalaa lana fulaa kolka wixii uu xalay maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay soo kaaf iyo kala dheeri maaha mahmaahdaas dibiga doolood waxaa 74kii gabay dheer
oo uu tiriye ku darsaday gabayaaga caanka ah ee la yidhaahdo cabdulqaadir xisi siyaad oo yamyam lagu naanayso gabaygaas oo wariye ku magacaaban iyo weliba laba kale oo ay iskumar soo baxeen waxay xambaarsanaayeen dhaliil xoog le iyo canaan uu u jeedinayay xukuumaddii kacaanka loo yiqiin ee xilligaas Soomaaliya ka talin jirtay tuduc gabayga ka mid ah ayuu gabayaagu isaga oo magaca bulshaweynta ku hadlaaya wuxuu kaga cawday ballanqaadyadii faraha iyo quruxda badnaa ee madaxdu ay ummadda dhagaha ugu sugi jirtay hase ahaatee ay waxayada ka hirgeli jireen dibigii doolood ama dibigii wardheer isaga oo dadweynaha ku simaya ayuu yamyam yidhi dibigii wardheer wuu maqlaa weli wanaaggii waxyeelada darkana wuu arkaa tan iyo waaqiisa weylaha loodii uma dihna oo waa allow maqanee waxaruhu mareegtii dabkay kula dhex waasheene faras wagaradkiisii go'aan weli ku joognaaye gogashii wiriiriga badnayd waa ku hurudnaayey waa tahay indergaradka waayaha nolosha u dhuun daloola mooye dabaalka maalintaas ladane wuxuu moodaa nin kaleba inuu la mid yahay markuu dhergaba wuxuu u maleeyaa dad oo idil inay caloosha u wada buuxdo kulaylka midicda iyo dhaxanta dayradhaafyada gabaad uu ka galo kolkuu isku hubsado ayay la noqotaa cid dibad ku hooyataay inaanay ifkaba saarayn waxaa ka dhacdhici weyda isba waa ka faraxsane dadka qaarkiis waxa ay la ilgo'an yihiin ee ay la murugoonayaan ninka uu garaadkiisu caynkaa yahay waxa uu soomaalida xusuusiyaa sheeko waa hore baxday oo lagala haray murti isaga oo kale loogu mahmaaho waxay ku sheekeeyaan xilli abaar gaagmareebta ahi ay geyga wada saabatay ayaa hogal aad u biyeysanay waxay si wacan ugu dul hoortay jees keligii meel deganaa iyo galabgaabkii ruumanka ay xooluhu ugu maydhacdaan waxay ahayd daruur aan meel kale ku di'in markii ay biyo dhigtayna aan soo noqon hase ahaatee jeeskaasi isagu wuu ku naalooday oo xoolihii baa si wacan ugu waraabay meel walbana xareed bay ka buuxsadeen dabadeedna kolkuu waagii bariyey ayaa waxaa dadkii u soo hor toostay baa la yidhi duqdii reerka u weynayd waxay aragtay dhowr jidhaamood oo ay biyuhu ceegaagaan kolkaasba intay reereen la kala badatay iyadoon is-ogeyn waxaa rabbi ka keenay meel waliba daad wararax allow mahaddaa oo ay ula jeeday dad dhammaantii in xalay roob u da'ay saakana xareedda meel walba waran lagu wada ildoogsanayo mahmaahda iyo sheekadeeda ayaa 1980kii waxay ku soo dhacday oo tiifta uu tiriye ku darsaday hal abuurkii la oran jiray cabdi iidaan faarax waxay ahayd silsiladii maanso ee deelay la baxday xilligii ay socotay silsiladaas oo hal abuuro badani ay isaga hal celinayeen arrimaha dalka guud ahaan gaar ahaanna qabyaaladda iyo siyaabihii ay u saamaysay nolosha siyaasadeed iyo midda bulsho ee qaranka hal abuuradaas qaar ka mid ah oo ay kala aragti ahaayeen ayuu cabdi ku eedeeyey hantida ay iyagu haystaan inay ka indhatirtay dadweynaha faraha badan ee darxumada iyo dandarrada ku nool gobollada dalkana meel walba ku baahsan waxa uu kala mid dhigay islaantii inta roobku keligeed u da'ay u malaysay cid kasta oo kalena inuu u da'ay markaas buu yidhi habartii ducdeed iyo dagalkay ku noolay daruuruhu ku hooreen dadka wada helmoodoo daad wararac bay tidhi misna talada kuma darin inuu duub abaar iyo gobol lagu darleefiyo degmo lagu haraad iyo darxumooyin muuqdaan dadku ku nool u badan tahay danyartiga shaqaaluhu daasad garow ah gadan karin mala talada kuma darin waase dumare yeelkeed buuri isla mahmaadaas islaanta ayaa waxaa jirta isna ku darsaday hal abuurka caanka ah ee la yidhaahdo mustafa shar cilmi taas ka sokow wuxuu soo qaatay labada maahmaahood ee kale ah carab qoyani hadal ma daaye iyo maroodigu takarta saaran ma arkee ka kale midda saaran buu arkaa kolkaas buu saddexdoodiiba maanse u rogay oo yidhi dadku waxay yidhaahdaan dibna aan xishoon iyo afka labada daan lihi ileen hadal ma daayaan wax kaloo ay ku darayeen maroodigu ma daawado dusha waxaa ka fooshanay midka kale duqsiga kora ayuunbuu dareemaa wax kaloo ay ku darayeen haba roob ku da'aya waxay dunida moodaa in barwaaqo laga degay dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo mid isaga la mid ah odaygu waxbana kuma tooraado haddii afadiisa iyo carruurta u kacda aanay noqon kuwa talooyinkiisa dhaga u leh danaha reerka indha u leh wixii kolba soo gacan galana aan ku dheeline dhaqaaleeya laba barbaar baa isku mar tabargala dabadeed way guursanaadoo mid walba wuxuu dhistaa inan uu isagu doortay ama ay dar kaleba kula taliyeen xil culus baa fuula ee labada mid waliba wuxuu u xusul duubaa sidii uu ku yeelan lahaa hanti isaga u gaara oo maantaa la jooga reerka cusubi uu naf ka dhigto berri ka maalinna uu u baxsado muddo kadib labadooda mid walba carruur baa u dhalata
carruur sida ay u korinayaan hadday wiil yihiinna barbaar ha noqda hadday gabdho yihiinna ahaada gashaantimo timatidcan oo guurdoona maalintaas bay labadaa reer ee isku waaga udubkooda la taagay kala hormaraan siday u badan tahay hodantooyo iyo baraare ayaa waxaa ku naalooda labada ninkii oori firfircoon intuu rabbi ku beegay uu haddana warasada xilkaska ah ka siiyey isaga ayaa bulaala oo hanti adduuna ay u gacan gashaa halka uu kii kale ka luufluufo oo sida la qabo saboolnimadu ay sad u noqoto macnahaas ayay u jeedeen soomaalidii hore markii ay suugaanta ku soo dareen hawraarta ah ilaahay ninkuu xoola la maaga dadkeed buu siiyaa oo ah maahmaha isku xidhaysa dadaalka odayga reerka iyo karti iyo xilkasnimaba xubnaha qoyskiisu kolba tayada ay leeyihiin gabay ay mahmahdaasi ka dhex muuqato ayaan ku arkay buug lagu magacaabo guur iyo garaad oo uu qoray gabayaaga la yidhaahdo khaliif askir diini xoosh kaas oo ku saabsan hiddaha guurka soomaalida iyo weliba sheekooyin curis ah oo isla arrintaa ku lug leh gabay uu qoraagu ka yeersiinayo samatar cawl oo jirayaasha sheekooyinka buugga ka mid ah ayaa waxaa ku jira ninkii maal ilaahay la rabo inuu muhiibsiiyo marka hore dadkeed buu helaa waana loo marage inta maxamed iyo maryan iyo muuse ii korayo ama ay mataanaha yaryar maqasha raacayso mucsir maahi ee taajir aan muuqan baan ahay waa tahay taa ka gudub dhaqanka soomaalida markaynu dib u eegno waayeelnimadu waxay astaan u tahay garaad dheeri ah iyo waayo aragnimo kolkii ay murugto loo baxsado waxay odhan jireen nin da'yari intuu geed ka booda ayuu tala ka boodaa hase ahaatee odaygu xaajada waa u miiriyaa oo hadba tii lagu meel mari karo ayaa loogu irkadaa dhacdooyin badan ayuu soo maray abwaano doora ayuu la soo fadhiistay guuldarro iyo foolxumadeed ayuu u soo joogay siyaarihii lagu furdaamiyena goobjoog buu u ahaa wanaagga nabadda laga helo ayuu garanayaa ba'a colaadda loogu tago ayuu yaqaan haddii laga dhagaystana labada midba waxa laga dhaxlo ayaa u hubban wixii ku soo kordhaaba waxay xusuusiyaan wax hore oo uu soo arkay markaas buu ka saadaalin karaa dhacdo waliba shar iyo khayr wixii ay soo jiidi karayso amaba laga filan karo waayeelku bulshada hareerihiisa ku dhaqan waayaheeda waa qof wax badan ka og waxsuu ka sii og yahay waxa isaga naftiisa ku soo kordha ama ka dhaca cudur iyo caafimaadba siduu shalay ahaa iyo maanta sida uu yahay waa qof isbarbar dhigi kara oo dhalaariba wixii ay kala dhacday ogaan kara inkastoo aanu aqoon dhaba u yeelan karin maalinta uu uun aakhira ku tirsami doono haddana isaga iyo xabaaluhu inta ay isu jiraan waa qof malayn kara sidaas baa waxaa loogu maahmaahay nin weyne wadkii waa yaqaan oo loola jeedo waayeelku cudurka uu u dhiman doono cudurrada inuu ka garan karo ama guud ahaanba qofka da'da weyne halka ay dhibaatada uga iman karto inuu si wacan u saadaalin karo mahmaadaas iyada ah ayaa hees uu curiyey oo miisaanka dhaantada ku samaysan waxaa u adeegsaday hal abuurka caanka ee la yidhaahdo axmed saleebaan bidde waxay ahayd hees ku jirtay riwaayad 1962 uu axmed sameeyey oo ay soomaalidu aad u daawatay lana odhan jiray alla aamin ma iisho maxamed yuusuf iyo saynab xaaji cali oo baxsan ku magac dheer baryahaasna iyagu ka mid ahaa hormuudyadii heesta casriga ah ee soomaaliyeed ayaa riwaayaddaas xidig iyo xidig ka ahaa heesta ay mahmaahdu ka muuqatana waxay si darandoora isugu halcelinayeen mar ay niyaddoodu sii kala jeeday oo maxamed uu daacadnimada saynab ka shakisanaa aadna uu u qawadsanaa baxsan oo markaa inta nabsi soo riday heshiis doon ah ayaa waxay odhanaysaa markuu wakhtigiisu wacan yahay wuxuu is yidhaa adaa wadanoo dadkuba waayo waa ilaawi jiree ma waa raagtay baa warkaaya kolkaas buu maxamedna ku gacan sayrayaa una sheegayaa inuu yahay nin weyn oo garan kara cidda waxyeelaynaysa oo iyada qudheeda ah wuxuu ugu jawaabayaa nin weyn waa ogyahay wadkii dilayo inaad weecataan warkaagii hele ee waraystay ku ogaaday halkaaad ku wadoo haddaad wiiqislayd wax maa noqon qaybtii 16aad oo ka mid ah barnaamijyadii taxanaha mahmaahda soomaalida waxayna ku saabsan tahay mahmaahda qaybteeda dugaagga iyo duurjoogta loo saarayo mahmaahda soomaalida waxaa ka mid ah qayb dhan oo dugaagga iyo duurjoogta loo saarayo inay iyagu curiyeenna lagu been hawaaso amaba la isugu sheekeeyo waxaynu maqalaa iyada oo laleeyahay waraabaa wuxuu yidhi abeesaa waxay tidhi biciid baa wuxuu yidhi gorayaa waxay tidhi dawacaa waxay tidhi iyo wax la mid ah waa la og yahay dugaagga iyo duurjoogtu inaanay aadanaha ku war ahayn oo aanay af soomaaliga ku hadli karin iska daa inay ku mahmaahaane
ujeedaduusa waxay tahay in murti lagula baxo waxna la isku tusaaleeyo waana tabsuugaaneed aan Soomaalida ku ekayn ummado badan ay la wadaagto mar walba oo mahmaadan la adeegsanayo sheeko gaaban oo gobol xaara ayaa laga horeysiiyaa dabadeedna bahalka loo saarinayo magaciisa iyo mahmaahadii afka loogu tiray ayaa la israaciyaa si loo rumaystana Soomaalidu kolka ay sheekadaas oo kala marinayso waxay tixgelisaa bahalka mahmaahda iskale dabeecadiisa waxyaabaha ka suuroobi kara iyo fikradaha guud ee ay bulshadu ka qabto haddaba dugaaga iyo duurjoogta ay Soomaalidu murtida kula baxdo waxa marahayga u mahmaah badan dhurwaaga oo ah bahalka reer miyiga Soomaalida ay isugu badiyaan wuxuu ka mid yahay dugaaga tirada yar ee hilibka mooyee aan oomati kale ku hambaasin geedahana doog iyo abaartoona aan afka saarin sidaa darteed waa bahal mar walba xoolaha reer miyiga isha ku haya oo eebbaweyna saami ugu daray noloshiisuna ay ku xiran tahay abaariga aaranba kama fogaado halka ay xooluhu daaqaan ama habeenkii lagu xareysto had iyo jeerna isaga iyo xoolo raacatada waa u halgan mar uu isagu raayo oo uu neef kala tago iyo mar ay iyagu raayaano ay waxadooda ka ceshadaan isu dhawaanshaha dhurwaaga iyo Soomaalida reer miyiga waxa ka abuurmay fikrada bahalka ku saabsan oo maanka bulshadeennii hore ku samaysmay gidigoodba waa fikrado xuma mooyee aan wax wanaaga lagu arag xagga dhaqankiisa waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax ay gunnima dilootay oo hunguri xumo diyahaal joogta ah iyo quusliiba lagu ibtileeyay dhaqankaas aysan jeclayn waxay garab dhigaan dhaqan gobeed ay ku sheegaan libaaxa oo si walba dhurwaaga uga dabeecad gedisan marka hore inuu dhab u gaajooda mooyee libaaxu xoolaha iskama laayo halka uu dhurwaagu markii ay u dagtaanba uu ka warjeefo marka labaad haddii uu ka dhergo libaaxu raqda kuma dulnagaadee waa ka tagaa wuxuuna u daayaa dugaaga kale ee duleedada halka uu wax ku cunaayo ka soo dhaguugaya dhurwaaguse xataa haddii uu dhergo hilbaha hoos yaal kama ag dhaqaaqo raxantiisa mooyee cid kale wax ugama ogolaado ilaa uu lafaha jajabsadana kama dul tago marka saddexaad neef uu isagu disha mooyee libaaxu baktiga wax ma moodo umana hawoodo dhurwaaguse waa xaabqaad aan xalaal iyo bakti u kala socnayn oo wixii uu ka soo kor dhacaba gaaja u qabato calooshana ka buuxsada dhaqankaas gunnimo ka sokow xagga abuurtana dhurwaagu Soomaalida waa u astaan fool xumo socodkiisa midabkiisa iyo lugihiisuba waa la siloon yihiin ragga kii fool xumo loo qarinayana magaciisa ayay kiisa ku laraano kolkaas bay hebel dhurwaa ku naanaysaan aqoonta dheer ee Soomaalidu ay dhurwaaga u leedahay waxaynu ka garan karaynaa magacyada iyo naanaysaha tirada badan ee ay u taqaan inta aanu hubno waxa uu af Soomaaliga ku leeyahay labada magac ee kala ah dhurwaa iyo waraabe waxaase u dheer naanayso 9 gaaraya oo dhammaantood tilmaan ka bixinaya sida uu u abuuran yahay kuwaasoo kala ah qaaryare ciida dambas qaar xabaal uruq dhaylo ciida muruqla lug dhamaato cagey huluul iyo cumar lug laawe naanaysahaas kuwa ka mid ah ayaa laga helayaa qaar ka tirsan hawraar dhaqameedyada ay bulshadu wada taqaan iyo maansadii hore labadaba taana waxaynu ku tusaaleyn karaynaa saddexdan kale ah cagey huluul iyo cumar lug laawe naanaysta cagey bal u fiirso shilaalka kolkay tahay oo xoolaha qoyska reer miyiga ah ay nacfi yareeyaan ayay hooyadu caanaha carruurta u tashiishaa waxay ku dadaashaa inay si siman ugu qaybiso xerada ayay gashaa iyada oo sidata haruubadii ay ariga ku lisi lahayd yaryarkuna meel aan oodafada ka fogeyn ayay soo tubaan in fadhida iyo in taaganba waxay kala hororsadaan kolba haruubka ay soo taagto ee ay caanuhu ku jiraan isku soo dabeecad ma ahee mid carruurta ka mid ah ayaa kolkaa afka qaylo ku shubta oo oohin iyo dhulgalgalasho isku dara isaga oo hooyo caana isii ku celcelinaya ma wuxuu ka baqayaa inay ilowdo mahamun gorgor buu leeyahay oo sidaaniba waa u dabeecad mase gaajo xun baa ka dhawaajinaysa wax ugu wacanba cabbaar hadday iska dhagatirto ayay marka dambe xaggiisa u soo jeensataa oo habaar aan hoosta jirin oo gacal cun ah inta ku tuurto ku tiraahdaa iga aamus caana kuuma hayee cantaliigso oo cagay ka bariye dhegaystayaal tanina waa qaybtii 17aad taxanihii mahmaahda Soomaalida barnaamijyadii ku saabsanaa barnaamijkii midkan ka horeeyay waxaad ku maqasheen gobolli ku saabsan mahmaahaha Soomaalida qaybtooda dugaaga iyo duurjoogta afka loogu tiro inta loo saariyo murtida lagula baxo isla barnaamijkaas waxaan ku faahfaahiyay dabeecadaha uu leeyahay dhurwaaga oo aan ku tilmaamay inuu yahay dugaaga nooca Soomaalida reer miyiga ah ay isugu badiyaan
sidoo kale waxaan ku soo qaaday aqoonta dheer ee ay bulshada Soomaalidu u leedahay bahalkaas anshigiisa iyo magacyada ay u bixisay. haddaba haddun bay la tahay inay habboon tahay inaan soo bandhigo mahmaaha dhowr ah oo lagu been hawaaso in dhurwaaga laga maqlay iyo iyaga oo kooban sheekooyinkii ay ku baxeen. sidii aan isla barnaamijkaas hore ku soo xusay waa bahal hilibka oo kaliya ku nool oo haba yaraatee aan oon kale ku hambaasin. markuu inta dhasho dhulka ka kaco ilaa marka uu baktiyana wuxuu ku raad joogaa xoolo dagan oo ciddii lahayd ay u wadeecaysay. gobollada ay degto meelo ka mid a waxay Soomaalidu dhurwaaga u qaybisaa saddexda nooc ee kala ah: intifaa oo ah midka ariga habeenkii markay tahay xerada ugu dhaca, qormahaalig oo ah midka geela laaya, iyo aylacataatir oo ah harag iyo maqaar wixii uu arko dagaalada laga guuro midka ka unuunufa. sidaa darteed ma aha in lala yaabo mar walba mahmaaha dhurwaaga laga sheegaa haddii ay ku wareegaan halganka joogtada ah ee uu ugu jiro helitaanka hilib uu ku noolaado. mahmaahda koowaad: dhurwaagu xilligii la joogaba intaas wuxuu jafayaa dhul qodaxdu sariiran tahay, dhul dhagax iyo dul miiran ah, dhul cagaag badan oo cidiyaha ka dhilqaya dubkana ka murxiya. hase ahaatee uma fadhiisto, saacidina uma maqna, umana xil qabtee. jarmaado iyo boqoole, caraabo iyo guuraba waxa uu ku qasban yahay inuu socod ku jiro. foog iyo fiidba wuxuu u tafaxaydan yahay jiid iyo caddiin siduu hilib ku heli lahaa si aanay nafta u kala dhaqaaqin. haddaba maalin maalmaha adduunka mid ah ayaa waxaa ugaasi u soo kalahay baa la yidhi dhurwaa duq ah oo toddobaadkii hore oo idil ku sali waayey. cadduun ruubad ah oo kulayl badan ayuu dhex jaqabsanayaa, suudiga daraaddiisna kolba cagaha ayuu ciidda kala boodayaa. balqaharaacdii kolkay tahay ayuu daalay, tallaababa wuu qaadi kari waayey. dabadeedna inuu nasto ayuu tashigii kaga dhammaaday. geed quraca harkii intuu ku leexday ayuu iska hiraan hiray. wax yar kadibna cagihiisii ayuu hoos u eegay. mase maxaa dhiig ka da'aya, maxaa qodax ku mudan faraha, suulashiisa afarta ah iyo cirbahaba inta dhulka la dhigo meel waliba way haaraysaa, xubin waliba way dhaawacan tahay. kolkaas buu hamiyey, wuxuu naftiisa kula sheekaystay inuu ku rayn lahaa haddii uu heli lahaa saydhada iyo cagaagga wax ka xigsada oo sida dadka kaba loogu tolli lahaa. haddana wuu isla yaabay, wuxuu garan waayey sida ay fikraddaniba ugu soo dhacday. wuxuu xusuustay inuu dhurwaa yahay oo cagihiisa dhiigga ka da'aya aan cidina dan iyo daarad ka lahayn. dabadeedna isaga oo ku raalli ah waxa uu yahayna aqoonsan ayuu iska helheshay oo inta hortiisa u dhaqaaqay ku tiraabay: haddii kaba la ii tolana waa alxamdu lilaahi, haddii aan la ii tolinna rabbilcaalamiin. oo noqotay mahmaha uu xusuusto wax inuu helo uu ku fiicnaan lahaa qof loo diiday ama laga hagraday, isla markaasna naftiisa ku dhiirigelinaya waxaas uu waayey inaanu u rambasin, dantiisana aanu uga harin. mahmaahda labaad: sida laga yaabo dad badan inay u haystaan arrintu ma aha oo dhurwaagu mar walba geesi ma aha. xoolaha haddii uu soo weeraro reer miyigu way kula diriraan, wayna ka dhacsadaan. haddii lagu maahmaahay libaax ninaan aqoon baa lax ka rita, dhurwaagu waa ka duwan yahay oo lax iyo riba hadduu wax kala tago way ka dhigtaan. dabadeedna halgaad iyo dhagax siday ugu marayaan ayay dhulowgeedaala uga soo haraan, isaga oo diyahaalkii uu qabay daalna ugu kordhay. taasi inay run tahayna waxay Soomaalidu daliil uga dhigataa dhurwaagii ariga mayracanaya u soo gaatamay ee ida iyo riyaba markii ay dareemeen ay dhagax yidhaahdeen, cagahana ay wax ka dayeen. dhinacii uu arigu u diday ayuu isna u afra qaaday. hase ahaatee wax yar kadibba si kadisa ayuu kabcilla isu taagay oo hortiisa ku dhaygagay. talow maxaa u muuqday? waa lax shilis oo arigii diday ka hadhay, dhinaciisana u soo cararaysa. intuu yaabay oo amankaag dhameeyey ayuu si degdega dhabarka u jeediyey oo jihadii uu ka yimi u faranduleeyey, iyada oo laxdiina ay ka daba jaran tahay, welibana ay ciyayso. show isagu ma ogee laxdu way indhala'dahay. show arigeedii meel uu u diday iyo meel uu ka jiraba war uma hayso. show markii uu u soo dhowaadayba jaanqaadkiisa ayay dareentay. show arigii ay ku jirtay neef ka mid ah ayay u qaadatay oo dhurwaaga ay daba cararayso wehel bay la ka dhiganaysaa. wuxuu ka baxsado iyana ay daba orodaba markii dambe oo malaha uu laba geedii ka soo fogaaday ayuu gadaal eegay, mase laxdiiba ma muuqato oo goor hore ayayba isaga hadhay. welise wuu amankaagsan yahay, wuuna ku gar leeyahay, maxaa yeelay araggiisa xoolo ka carara mooye weligii iyo allihii xoole xaggiisa u soo carara waa u maanta. galabtaasna orodkii dheeraa weli isaga oo la xuurtaysan ayuu yidhi: war madayradan cun islahaabaa aniga calaf iga dayday. oo uu ku maahmaaho qof waxtar iyo waxsiin kaleba ka filaayay qof kale oo uu u hanweynaa,
hase ahaatee ku hungoobay welibana isagii wax doonayay wax la biday halkii wax laga siin lahaana wax laga weydiistay mahmaada saddexaad maalin kale waxay ku sheekeeyeen dhurwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay kayn uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday kayn dayrtii hore uu ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey maanta samee loola kacayba ari iyo lo' kama muuqdaan inkastuu qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday isaga oo tuuxaynaya meelihii uu sabeynaha iyo ceesaamaha ku layn jiray ayaa geeda dhaadheer oo hortiisa sariiran sharqani uga baxday mar qura ayay helidiila cusub ay ku soo korodhay indhaha ayuu galka ka soo bixiyey oo miciyihii isku lisay wuxuu isu qaabiyey waxaa sharqama inuu haabto soona qabsado isaga oo aan hurdin buuriyoon sharqantii iyo shababaxdii u baxday buu u dhegtaayey afarta jaho ayuu midba mar indhaha ku fiiqi bal inay bidhaan dagani u muuqato hase ahaatee wax yar kadib bay himiladiisii hoos u soo dhacday hankiisii baa dabaysha raacay show sharqantii u baxday waxay ahayd raxan daayeer ah oo geedaha hareeriga ah midba mid uga boodaysa kama sadayriyeene miyuu gaari karaa miyuu inta duulo dhirta dusheeda ugu tagi karaa waa maya jawaabtu sidaa darteed wuu iska murugooday markaas buu hamiyey allow aadi baratide yaa daayeerow dhulka kaa hela buu isaga oo sidaas isaga murugoonaya ayuu ku hambabaray laba daayeer oo ay laacdan uga caddahay iyaga oo iscaysanayana geedkii uu hoostiisa taagnaa dusha uga baxay markaasuu kor u dhowray isaga oo caliyada qubaaya wuxuu indhaha ku joojiyey dibka guduudan ee daayeerta lagu yaqaan duurtoogta kalena uu kaga duwan yahay saa waxaa allah uga dhigay hilbe ay sitaan oo ay kollow cuni doonaan isaguse uu ka qadi doono kolkaas buu inta madaxa hoos u rogtay ku cataabay hilba waa nin waayey iyo nin dabada ku warwartay oo uu ku mahmaahi karo wax uu aad ugu baahi qabo qof si walba ku raadiyey ku saheli waayey isla markaasna arkaya qof kale oo isla waxaa si xad dhaafa inta u haysta haddana aysan wax weynba la ahayn dhegaystayaal barnaamijkii fanka iyo suugaantu maanta halkaa ha inoo joogo taxanihii mahmaahda soomaalida barnaamijyadii aan kaga hadlaynay waxauna ku saabsan yahay mahmaahda duurjoogta iyo dugaagga laga sheego wax kaleba ha lagu sheegay dhurwaaga garaaddarro laguma xanto had iyo jeer waa bahal aan dantiisa ka seexan goor walbana u xusul duuba waa bahal kala garan og xoolaha dagan ee uu wax kala dhexi kara iyo kuwa ilaashan oo dadkii lahaa ku gadaaman yahay wuxuu xataa yaqaan xoolaha haweenka iyo carruurta lagu halleeyo kuwaas ayuu ku soo dhiiran og yahay halka uu ka meermeero kuwa ay ragga waaweyne la joogaan ee bartankooda uu bulaankooda ka maqlaayo isaga oo siyaalaha ku tilmaaman ayay haddana waxay ku sheekeeyaan laba jeer inuu nacasoobay wixii la gudboonaana uu ka ilduufay waa labadii jeer ee intuu doqonoobay uu gacmaha ku dhigi waayey xoolo nool iyo hilba aanu inaba u hawshoon isha baalkeedana u soo jirsaday labada jeerba sida aynu arki doonno waxaa hoday rayrayn xad dhaaf ah oo caqligii kala tagtay farxad aan shinkeed gelin ayaa calaf tirtay wuxuu garan waayey wax aan gacantaada ku jirin inaan la isa siin markaas buu habeen uu dhala ku seexan lahaa gaajo ku seexan wuxuu iloobay hillaac fogaan badan jeer halkuu ku hooray la dego inaan laabta loo ruxin markaas buu waagii hundur iyo calool xumo ugu bariyey isaga oo kari karay inuu baraaro ku seexdo bashbashna uu ku soo tooso waxay ku been hawaaseen dhurwaa muddaba xanuunsanaa oo sanbabada laga hayaa inuu maalin maalmaha ka mida ugaarsi u baxay duhurkii markay tahay oo aanu waxbaba gacan ku hayn ayaa meel taag ah oo hortiisa ah waxaa uga bidhaamay wan keligiis ah oo iska daaqaya wan allihii alla yahay oo aan arigiina ku dhex jirin cidina aanay la joogin dhurwaagii yaa barbi u keena wuxuu isu qaatay inuu hurdo oo ay waxaani riyo un tahay indhihiisii ayuu aamini waayey midig iyo bidix ayuu jeedaaliyey bal ciddii lahayd inay meelaha uga muuqato waxba kolkuu arki waayey ayaa faraxmaansheeyey kolkaas buu damcay inuu qoslo hase ahaatee kolkuu u hogbaday ayay feerihii xanuuneen intuu qosolkii isku celiyey ayuu isaga oo halkiisii aan ka soo dhaqaaqin wankii u tanaagooday oo ku yidhi wanow yaa kula joogay isaga oo baraadla ayuu wankiina ku jawaabay cidna dhurwaagii oo jawaabta rumaysan la ase inay run tahay og ayaa isna wankii ugu jawaabay waryaa wanow feerahan aqoon ku leeyahay ha iga qoslin
وانت إلوبي حنونكي هاي قصل iyo warax isku daray wuu saeedayo qosolkii badnaa ayaa sanbabadii qarxiyay dhiig buu mantagay wax yar kadibna jilbaha intuu u dhacay ayuu habsaday kabtiisa isaga oo gorofsan indhihiisuna shan yihiin ayuu wankiina iska dhaqaaqay isaga oo iska laafiyoonaya waxaa sheekada ka hadhay hawraartii ruwaaga ay ahayd feerahan qoon ku leeyahay hayga qoslin oo ku maahmaahay karo qof loo sheegay arrin uu mudaba ku taamayay aadna uu u sugaayay oo gadaalkii dhabowday hase ahaatee farax awgii la rumaysan la labada jeer mar waa markaa jeerka kale ee ruwaagu doqonoobayna wuxuu ahaa habeenkii uu inta waxba soo waayay uu isaga soo noqday halkii uu godka ku lahaa isaga oo quus ku dhow markaasna bahowshii iska hor yuurura ayuu meel agtiisa asharqan ka maqlay inkastoo ay dunuuda mugdi ahayd haddana wax ka indha curdoone haddiiba meeshii ay shanqarta uga baxday ayuu indha iyo dhagaba u wada jeediyey wuu arkay oo waa maxay waa dameer keligeed ah oo raran oo maxaa ku raran hilbajaad walba ah kuwa geel kuwa lo-aad iyo kuwa ari intaba wuu rumaysan kari waayey qosol uu hayn la'yahay isaga oo isku celinayay ayuu si degan u daba tuuxay oo ma iyadaa kollama ka baxsan karaysa maxaa orodka ku wata hilbihii buu kolba qaar eegaa markaas buu kala qorsheeyaa kuwa uu duqda u geyn doono kuwa uu isagu cuni doono kuwa uu gabnaha siisan doono dameerta qudheeda sida uu raxantiisa ula wadaagi doono weli wuxuu rumaysan kari la'yahay waxaa hortiisa ka muuqdaa inay tahay dameer hilba ku raran yihiin oo baylah ah markaas buu qosol la dhacay markaas buu boodbooday markaas buu dhulka galgashay markaas buu kacay markaas buu fadhiistay markaas buu warxay oo inta geddi cad u seexday xidigaha la sheekaystay oo ayaankiisa uga warran hase ahaatee waxay noqotay farxad cimri gaaban intii uu qosolka iyo faraxa ku maqnaa ayaa waxaa isqabsaday cirkii iyo dhulkii daruuro biyaysan baa isa soo doontay oo ay midaba mid ku biirtay onkad iyo helaaxan kala joogsi lahayn ayaa afarta gees isaga baaqay waa karar dusha ah iyo daad mulacyaynaya oo gal iyo goofba buuxiyey isaga oo dhibicda ka gabanaya ayuu laba laxaadsaday oo dameertii oo kal hore fogaatay tallaabo degdeg ah ku tiigsaday waxba se ugama naas caddaan waxba uma muuqdaan mar wuu ordaa marna inta istaago ayuu sharqan dhagaystaa mar midig mar bidix kolba dhinac ayuu u cararaa iyada oo ay dhibicduna dhabanaaninayso waxba wuu la'yahay raq iyo ruux toona dameertii iyo hilbihii isma hayaan roobkiina awal dhibic keliyuu ahaayee dabayl baa ku soo korodhay wuu daalay wuu dardhaday markaas buu inta geeda xir ah karartii kaga gabaday wuxuu ku calaacalay mar kale haddii uu dameertii codkeeda maqli lahaa inaanay qosol iyo cayaayir ku dhaafteene iyada iyo wixii saaraaba uu halhaleel gacanta ugu dhigi lahaa kuna mintidi lahaa laakiinse sidaan ballaaran uma odhan wuxuu calaacalkiisii ku taariikheeyey oraah erayadeedu ay koobnaayeen oo ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa oo noqotay maahmaa uu xusuusto wax uu aad u jeclaa qof uu ayaankiisa soo agdhigay ama u soo dhoweeyey dabadeedna goorteedii inta ku mintidi waayey kol dambana ay u soo mari weyday qofka ay sidaasi la soo gudboonaato ayaa waxaa badanaa ku soo dhacda sheekada dhurwaaga iyo mahmaahdii ka hadhay allow yay mar u bururuf tiraahdaa sidan hadda ka hor carabka ku dhuftay dhurwaagu waa hilib ku nool wax aan hilib ahaynna wax kuma falo xoolaha la dhaqdo hilibka iyo caanaha dartood haddii ay dadku u dhaqaalaystaan dhurwaagu hilibkooda oo keliya ayuu daneeyaa oo u hamuuman yahay caana inay leeyihiin iyo in kalena war iyo wacaalba uma uu hayo habeenkii ayuu xeryaha xoolaha lagu soo xeraysto u soo gabadaa si uu inta ugu dhaco uu neef ugala tago inta uu ilbaabtiga ku jira wuxuu arkaa dumar aryaha lisaaya oo kolba haruub caana ka buuxaan qof kale oo dibadda taagan u dhiibaya si ama carruurta loo siiyo ama weel kale oo weyn loogu biiriyo dhaqdhaqaaqaasi dhurwaaga waa u muuqdaa dansa kama laha dhegaystayaal tanina waa qaybtii 19aad taxanaha mahmaahda soomaalida barnaamijyadii aanu kaga hadlaynay wuxuuna ku saabsan yahay welina aanu wadnaa mahmaahaha laga sheego dhurwaaga curufkiisa ragga yaqaanay waxay sheegaan dhurwaagu inuu ka mid yahay dugaagga neefka uu markaa dilanayo inta uu bakhtiisanayo aan u kaadine orodka kaga dharga bal inuu caana waaye yahay hasha ama saca uu cuni doono wuxuu ka abbaaraa goljilicda iyo candhada oo ah dadka xoolaha dhaqdaa xubnaha neefka midda ay ugu jecel yihiin taasna waxaad ku rumaysan kartaa sheekadii laga reebay dhurwaagii geela daaqaya inta soo weeraray ku hormaray hal dhowaan dhashay iyo nirigteedii hashii ayuu haddiiba candhadii ka halakeeyey markii ay ka baxsatayna nirigtii oo u kuftay ayuu faruuriyihii kow ka siistay oo orodkii ku liqay
inkastoo markiiba cid bahalka ka reebta ay heleen labadii neef iyaga oo dhaawacan bay fiidkii gurya tageen waana la kala xidheeyey cawaysin dambe kolkay noqotay oo xiskintii geela la gaaray ayaa odaygii reerka u weynaa oo warmooga ahi wuxuu damcay hashii iyada ahayd inuu maalo intuu nirigtii dibadda ugu soo saaray ayuu u yeedhyeeray haddiise waxa galabta dhacay uu ogaan lahaa amaba iftiinadii hore ay wax u muuqan lahaayeen uu dhayan lahaa uune isba caawo weel uma soo qaateen waxaase dareengalay markii uu arkay hashii iyo nirigtii isu ordi jiray oo kala ufoonaya haddii uu isu soo eriyana sii kala durkaayo oo sii kala jeensanaya waxa la yidhi isla markaa uu odaygu hasha iyo nirigta isu soo duwaayo waxaa duleedka golaha geela taagnaa laba dhurwaa oo midi yahay kii galabta labada neef ilkaha daray odayga qudhiisa oo dhurwaaya la hadal ahaa wuxuu wax gartay markii uu maqlay dhurwaagii lamaanihiisa harakeeyey oo isaga oo qoslaaya kii kale ku leh maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa oo noqotay hawraar loogu mahmaaho cid iyada oo aan ogayn dhib weyn loo geystay isla markaasna guuldarrada lagu dhigay awgeed loogu wiirsanayo mar kale waxaa la yidhi dhurwaabaa goorfiid horaada wuxuu soo dul joogsaday qayro aad u dhaqan oo geel lo' iyo ariba ay xero waliba u buuxdo wuxuuse ka yaabay bulaanka reeraha ka baxaya iyo dhallinyarada faraha badan ee xoolaha ku dhex jirta intii muddo ah ayuu wax ilbaad ah ka waayey wuxuuna istusay iyada oo arrintu sidaa tahay haddii uu neef la tago in markiiba laga ridan doono lana eryi doono isaga oo ay tala ku wansiixsan tahay ayaa reerkii uu dul joogay waxa u soo wareegtay haweenay baadidoona oo riyo maanta ka goosmay raadinaysa tii reerkan ahayd ayaa inta wax u baytisay ku tidhi sumadda aad sheegtay ariga leh ee xaynta ah waxaan goor aan fogeyn ku soo maray balle hebel geedaha raydabta ah ee ku dhow dhurwaagii oo labada dumara sheekadooda dhagta u dhigaayey ayaa isgundiyey oo ciddi isku jabiyey farax buu ishayn kari waayey haddiiba go'aan buu gaaray reerkan uu raggu ka buuxo intii uu neef laga dhigo isku biimayn lahaa maxaa u diidaya raydabta la sheegay isba wuu yaqaani xayntaas baylahada ah inuu u degdego oo haweenayda iska leh uu uga hormaro waa waxba orod buu istaabtay xagga iyo xagga isaga oo aan eegayn ayuu halkii la tilmaamay durbadiiba isa sii taagay geedihii raydabta ahaa ayuu midba mar hoos joogsaday afarta jaho ayuu kolba mid eegay markay waxba u muuqan waayeenna dhulka ayuu isbilqay dhagaha ayuu raariciyey bal inuu cida riyaha maqlo kolkii dambe ayuu ka shakiyey geedihii ay haweenayda kale u sheegtay inay kuwan yihiin iyo in kale kolkaas buu daymo ugu noqday agagaarkooda ayuu eegay mase xabagtii ka daaratay wax aan ahayn uma ogog laha kamana agdhowa wuxuu hubsaday isaga iyo hilib inay caawa isa seegeen kolkaas buu calaacalay mar isagii baa ishaaraamay marna geedihii buu haaraamay marna haweenaydii xaynta ku baytisay ayuu habaaray wuxuu yidhi maanaan rowrayn mase raydabtaan raydabtii ahayn mase rimagu ka soo dhacdii baan run sheegayn oo noqotay hawraar uu ku mahmaaho dan uu lahaa qof aad ugu dadaalay hase ahaatee ay waxba u hirgeli waayeen inkastoo waa biyo kama dhibcaan war uu islahaa uu markiisii horeba ku howlgalay sida la ogyahay ragga soomaalidu haweenkooda way xifaaleeyaan haweenkii qudhooduna shib ma aha oo dhaliilaha ay ragga u hayaani ma tira yara haddaba waxyaabaha ay raggu dumarka ku tilmaamaan waxaa ka mid ah inaanay ka samri karin wax ay waa hore bixiyeen ama laga qaatay ama iyaga oo aan raalli ka ahayn si uun